munaasabad ballaaran oo casharaf ay taasoo taageero loogu muujinayay murashaxa golaha deegaanka ee degmada Cerigabo Injineer Saciid Axmed Yuusuf oo tartamaya doorashada golaha deegaanka ee degmada Cerigabo kana sharaxan xisbiga mucaaradka ay wadani oo nambarkiisa codeyntu yahay 302 ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada beesha Cali Aadan oo degta degmada Cerigabo iyo galbeedka degmadaasi ayaa habeennimadii xalay toddobaad ka qabsoontay hotel Martisoor ee magaalada Cerigabo waxaana ka soo qayb galay dhalinyarada iyo aqoon-yahankii haweenka beeshaasi waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoon-yahanka haweenka beeshaasi iyaguna halkaasi ka sheegeen hiil iyo hoob la garab taagan yihiin Injineer Saciid Axmed Yuusuf oo taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada Cerigabo waxaana ay sheegeen in koosto ka bisha May codadkooda siin doonaan Injineer Saciid Axmed Yuusuf casho sharaftan iyo xog sooraysigan waxaynu sharax Saciid Axmed Yuusuf oo u sharaxan xilka golaha xildhibaannimada ee degmada Cerigabo marka koowaad musharaxa waxaan ilaahay uga baryaynaa hamigiisa inuu ilaahay u rumeeyo noqdona insha Allah musharax u soo baxa gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Cerigabo taasina waxay cadayn u tahay sida musharax xildhibaan Injineer Saciid Axmed Yuusuf loogu kalsoon yahay oo dadku ay ugu qabaan kalsooni taasna waxa waliba daliil u siyaa anoo maanta ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waliba mas'uuliyiintiisa ugu sarsaraysa gobolka inaan aniga laftarkayga ka soo qayb galo waa arrin weeyaan lagu farxo waan soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxa uu socdaa oo u tartamaya waa local councilka weeyaan ama dawladda hoose dawladaha hoosena way idin ogtihiinoo laba midun baa lagu tagaa markuu xildhibaanku tegayo cidda wax ka qaban kartaa waa laba midkood xildhibaanku inuu yahay economist ama inuu yahay engineering waa labada point oo kaliya idin sheegayaa horta marka deegaanka la sheegayo xildhibaan marka laga warramayo golaha deegaanka waxa loo jeedaa waa waxa magaalada yaa degan magaaladana deegaan baynu ku nahay xildhibaanna horena waynu kala soo baxnay taa idinka warwari maayo inaynu xildhibaankeena ku mintidna idin soo jeedinayaa Saciid markaan u soo galo Saciid waa nin aqoon-yahan ah oo aad u dadaal badan oo aad wanaagsan anigu Hargeysa uga yimi isaga xildhibaano ku jiro isaga dartiman Hargeysa uga yimi iyo xildhibaano badan oo la sheegaya reerkeena reer Cali Aadan marka laga yimaado baarlamaanka waxa laga yaabaa inaynu ku kala duwanahay siyaasadana ayaan ku kala baydhin golaheena deegaanka waynaynu ku mintidnaa baarlamaanku yeelkii nin waliba hobbi buu leeyahay hobbigiisa halku la galanayaan lagu la yaabin laakiin muhiimaddu waa deegaanka waxaynu nahay dalka waa ka waraynaa maanta dadkuna waa ilbaxay dunidana qof waliba fakir iyo ra'yi buu leeyahay wax qabad baynu ku taminayna dadka oo ku dooranaynaa maanta sababtoo ah in badan baynu eegaynay oo ka fiirsanaynay haddaan nahay waayeelkan halkan jooga ama dhalinyarada halkan joogta ama aqoon-yahankan halkan isugu yimi waxay noqotay qofku inuu laba aqoonood yeesho aqoontuna waa laba waa articulation iyo experience baa la yiraahdaa labadii uu wataa inankaasi wax fara badan baan soo rogrognay talan badan baynu soo galay haddaynu nahay beesha Muuse Saalax siiba ardayga hoose reer Cali Aadan markaynu ka hadlayno waxaynu garanaynaa ninka dhalay waa qadiibkii weeye Sheekh Axmed Yuusuf diin baynu ku garanaynaa run baynu ku garanaynaa rayaynu ku garanaynaa waa halkii u dambeysay nisne sharciga ugu dambeysay waxaan leenahay rag iyo dumar qof waliba waxaynu ku duulanahay oo tartamayna oo codeynayna oo hankeenu yahay xildhibaanka golaha deegaanka Saciid Axmed Yuusuf mar labaad waxaan loo joogaa caawa xildhibaan Saciid Yuusuf iyo inta ka soo qayb gashay xafladda waanu iswada garanaynaa dhammaanteanba in badan baynu dadka qaar dooraneynay oo lahayn maantana kan codka ugu rida maanta Saciid waa nin musatir oo reer Cali Aadan inamu oran nafiyo gooye maalaysiya ee codkiina qura igu hiilayo yiri inaan la garab taagnaano soo diyaar ma intidin waxaan u rajaynaynaa guul insha Allah oo lambarkiisuna uu yahay 302
iyo 31 May insha Allah. gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay injineer Siciid Axmed Yuusuf oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada Cerigabo isagoo nooga mahad celiyay dhalinyarada soo qaban qaabisay munaasabadan casharaf tahayd waxaana uu halkaasi ka sheegay waxyaabaha u qorsheysan haddii ku guuleysto xubinimada golaha deegaanka ee degmada Cerigabo waxaana uu sheegay inuu leeyahay aqoonteedii iyo kartideedii injineer Siciid Axmed Yuusuf oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada Cerigabo nambarkii socdeentuna uu yahay 302 marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada aadka u firfircoon ee inagu soo casuntay casumaadan aadka u sharafta badan isla sidoo kale iyagana waxaan u mahadnaqaynaa qabanqaabiyayaasha iyo ka soo qaybgalayaasha iyo dhammaan kuwa kale aan ka soo qaybgelin ee qalbiyada inagala socda ee inaga maqan aanay laakiin u suurtoobin intaa kadib aniga waxa aad igu farxada oo aan isleeyahay waxaad kaga duwan tahay xildhibaanada kale qodobo badan oo dhowra oo ay ka mid yihiin xildhibaanadu inta badan iyaga ayaa dadka soo ururiya hawli kaga baxdaa isu keena laakiin aniga waa lay soo maamuusay waa lay keenay waa lay soo sharfay aad ayay ugu mahadsantihiin qodobka kale ii dheeri waxa weeye waxaan ahay nin ku kalsoon aqoontiisa oo ku yimi halkanaan iminka taaganahay uguna sharaxan golaha deegaanka degmada Cerigabo sidaa og tihiin halkan anigu waxaan u imi oo ay igu hagaysaa aqoontaydu inaanan ahayn nin ka moogan waxa laga qabanayo dawladda hoose ee degmada Cerigabo sidoo kale anigu waxaan isleeyahay waxa tahay ama waxaad noqonaysaa daadiyaha danyarta magaalada Cerigabo waxaan idin weydiisanayaa oo aan ku kalsoonahay oo ay la garab taagan tihiin ama aaba isiiseen codkiinii waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin عدنان عبد الرشيد علي تلفزيون كعالمي جاي كلسن TV Cerigabo